faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax nooca miinada ah oo ciidan ka tirsan Amisom maanta lagu eegtay degmada Hilwaa ee gobolka Banaadir. Qarax oo la eegtay kolonyo ka tirsan Amisom ayaa ka dhacay wadada ka timaada Jamhuuriyadda tagtay ilaa isbitaalka Soos ama Shaleema Cabdiwaayeel taasoo hormartay saldhigga booliiska degmada Hilwaa. ciidanka ka tirsan Amisom ayaa qaraxa kadib furay rasaas aan cidna loo aaba yeelin taasoo keentay in uu ka dhasho khasaare iskugu jira dhaawac iyo dhimasho. Inta la xaqiijiyay qaraxan waxa ku geeriyooday 3 qof oo 2 kamid ah yihiin haween halka midka kalena uu yahay nin oday ah oo watay gaari dameer. Sidoo kale waxa ku dhaawacmay ugu yaraan 6 qof. ciidamada Amisom qudhoodu waxa gaaray khasaaro waxaana goobta ku burburay mid kamid ah gaadiidkooda qaraxu haleelay. mid kamid ah dadkii goobjoog oo ahaa qaraxan ayaa keenan uga waramay sida ay wax u dhaceen. qarax meesha ka dhaca waxa waaye wadadan ka soo baxdo sagax marka ka soo baxdo masaajid Turkiga wadada u laabanayso inta u dhaxayso maxalla ay sheeg meesha salax banooniga ku yaalo iyo inta kale u dhaxayso meesha qaxootiga dhismaha ay degan yihiin. meesha waxa u badan tahay dukaaman iyo dad deegaan ay u badan tahay meesha degan. meesha wax ka dhacay ciidamada Amisom la eegtay nooca dhulka lagu aaso ahaa qarax markuu dhaca ka dhacay ciidamadu si aan loo aabeeyrin ay rasaas u fureen rasaastii ay qasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ma la og yahay. qasaaraha dhimashada dhaawac iskugu jiro waa inta kortagada oo aan sida cad aan u sheegi karo laba haweeney oo gurigooda ugu tagtay rasaasta ugu tagtay maadaama rasaasta si oo la iskaga furay aan caadi ahayn. waxa kale oo isna ku dhintay oday waday asna rasaasta markii la furay dadkii wadada maraa kamid ahaa. inta kale ilaaha u yeesir 2 qofna way ku dhaawacaan laba ilmo yar oo iskuul ah. wadada qarax oo ka dhac wadadan Jamhuuriyadda intaadan u gudbin waxa u leexanay masaajid Turkiga wadada ku aadan oo tooska wadadaas uu ka dhacay qaraxa oo waxay hormartaa saldhigga Hilwaa ilaa Soos ay tagtaa. tilmaanta saxda waa sidaas. qaraxan ayaa ku soo aaday iyadoo shalay ruux waxyaabaha qaraxa isku soo xiray uu weerar ku qaaday mid kamid ah maqaayadaha shaaha lagu cabo oo ku yaal barxadda askarta lagu feeliyo iskool Buluusiya ee degmada Xamar Jajab. qaraxan waxa ku dhintay in ka badan 10 ruux halka dhaawac inta ka badan yahay. madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa mucaaradka waxa uu ka diiday in uu kala diro guddigii uu soo magacaabay iyadoo sidoo kale la soo warinayay in mucaaradka ay guddiyo u kala dirayaan magaalooyinka Jowhar iyo Dhuusamareeb. warbixintan iyo war kale oo ku saabsan musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya oo laga wado inay dalka ku soo laabtaan kuna dhawaaqaan isbahaysi ay ku midaysan yihiin Xuseen Cabdulle Maxamed ayaa soo jeedinaya. 48 saac ee soo socda waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho ay soo gaaraan dhammaan musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiyiin kale oo mucaarad ah. warar heshay idaacadda Kulmiye ayaa sheegaya in musharaxiinta markii ay soo gaaraan magaalada Muqdisho ay yeelan doonaan kulan kaas oo socon doona 22 ilaa 22 bishan kadibna waxay ku dhawaaqi doonaan isbahaysi ay ku midaysan yihiin musharaxiinta xilka madaxweynaha. sidoo kale wararka heshay idaacadda Kulmiye ayaa tilmaamaya in xubnahan ay mar kale soo saari doonaan baaqyo ka dhana guddiga doorashooyinka qaranka iyo kuwa heer dawlad goboleed haddii laga jawaabi waayana ay sameyn doonaan guddiyo doorasho taas oo ka dhigan bilowga wadda halis ah oo abuuri karta khatar badan. qaar ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha xildhibaano iyo senatarro ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana laga soo doortay Galmudug ayaa la sheegay in habeenna ka hor magaalada Muqdisho ay kula kulmeen madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor isla markaana uu diiday dalabkii ay hordhigeen oo ahaa inuu bedelo guddiga doorashada ee heer dawlad goboleed. xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kulankaasi goobjoog ahaa ayaa keedan u sheegay in la go'aamiyay in guddiyo ka socda mucaaradka loo diro magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Jowhar si ay kulamo kula soo qaataan madaxda maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. kulamadaas oo ah kuwa lagu sii wadayo wada hadallada ku saabsan in la bedelo guddiyada doorashada ee labada maamul ka yimaada. haddii ay miro dhali waayaanna waxaa bilaaban doona qalqalgelin siyaasadeed oo soo food saarta maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle sida ay tilmaamayso xogta aan helnay. Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka mid ah xubnihii hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in dalka uu lagu galay xaalad siyaasadeed oo aad u adag haddii aan la helin tanaasulna ay sababi karto in la soo farageliyo dawladda iyo mucaaradka. xasilooni darro siyaasadeed inay imaato ayaa macquul ah in dalku qatar amni uu galo. runtii waa la socotaa geedi socodkii arrimaha doorashooyinka in meel fog laga keenay haatan oo la rabay in shaqadii ay bilaabatana runtii waxaa muuqda isjiid dhanka dawladda iyo qolyaha mucaaradka. marka waxay igula muuqataa in arrintaas maaragtay meel dhaxal la isugu keeno oo loo turo dalka iyo shacabka Soomaaliyeed. runtii waxana waa masiir intii mar walba ay marjic dalka u noqon lahaa beesha caalamka in ayagu gacmo jir hoos loo dhaqaay in ayagu ay arrintaas si Soomaalinimo ah
si maaragtay in arrintaas maaragtay si farsamo lagu xalliyo. Professor Cali Saciid Maxamuud Kulani ayaa sheegay in dawladda haddii aysan si degan u miisaamin xaaladda siyaasadeed ee lagu jiro tan amniga iyo baaqyada ka soo baxaya xisbiyada iyo musharaxiinta ay sababi doonto inuu bilaawdo abaabul ku salaysan is-aruursi qabiil kaas oo adkeyn kara xaaladda Soomaaliya. Siyaasadaas waxay saameyn pressure xoog leh saari doonaan ugu yaraan maamul goboleedyada madaxdooda iyo gudiyada la magacaabay. waxaa pressure ka soo noqon doona pressure beeleed, wuxuu noqon doona pressure deegaan, wuxuu noqon doona pressure iyo colays famil. waxaa soo dhan markay bilaabo doonaan ugu dambeyn waxaa sileeyahay dawladda waxa ku khasbanaa doonta inay wax badan ay ka bedesho habka u fikirayso iyo qaababka ay soo dhistay gudiyadii iyadoo kaashanaysa dabcan saaxiibadeeda gobolka iyo beesha caalamka. waxaa kaloo in muuqanaya si guud in siyaasadda dalka ay isbedeshay oo doorashadii qaabkii loo filayay waqtigii la saadaalinayay inay dhici doonto inay kasoo hormari doonto. maxaa yeelay in waqtiga culayska ayaa keeni doona iyo waqtiga la marayo siyaasiyiinta isbahaysiga qaabka u fakerayaan ayaa keeni doonta. marka sababna faragelin toosa ayaa imaan doonta oo lasoo farageliyo ayaan isleeyahay Soomaaliya siyaasadeeda qaabka soo dhacayaan. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haysto muddo ka yar 9 cisho ayaa meel sare ka eegaya xaaladda Soomaaliya gaar ahaan dhaqaaqyada mucaaradka lamana oga sidoo ka yeeli doono xaaladda si adkaanayso ee doorashada Soomaaliya. madaxweynayaasha maamul goboleedyada kale ah Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa garbaha ugu weyn ee uu ku duulayo madaxweyne Farmaajo maadaama ay aaminsan yihiin in sii joogitaankooda uu ku xiran yahay in madaxweyne Farmaajo mar kale talada dalka qabto.